والسلام على رسول الله. الآية القرآن كحكولي ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. بن آدم كوحن أبو الري سيدا وفيعا أصلا كي فطرة يا أبوك بن آدم كوحيين وجعلي هاي السماحة دماتي هديت هاي عدالة هديت حرية هدي علم هدي حلالي وحسم الله يقانين وجعلي وحما الله يقاننا إنه نعبيها. لكن أنت وقبضان له dadka dibadda ka jooga ama shayaadiin ama bini aadamka shaydaamooday ah ayaa u qurxiya aadanaha waxaan qurux lahayn isagoo ka soo galaya meelaha ama godololooyinka uu jilicsan yahay ee ku saabsan shahwaadka ku saabsan magac doonashada ku saabsan hanti raadinta ku saabsan dumar jacaylka meelaha uu aadanuhu jecel ka soo galan dabeetana way anbiyaan sida awgeed qof kasta oo si fiican loo wacdiyo ama si fiican diin loogu sheego ama si fiican rabbigii loogu xidhaa wuu baraarugaa oo wuu dareemaa nuqsaanta aadanuhu meesha ay ku jirto waanu isku dayaa inuu iska awdi karo dadyowga dabadda ka jooga ee fitradiisii saliimka ahayd xumaynaya. Asalaamu calaykum.